السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا ku xiran channelkeena dhamaantii soo dhawaada saaxiibayaal caawa iyo abdeedidii ugu dambeeyay ama wararkii markaa ugu xiisaha badnaa oo aan idinku talagalnay. haddaba dhowr qodob ayaynu ku soo qaadanaa oo aad u xiiso badan. qodobadeennana waxa aynu ka bilaabanaynaa oo qodobkeena koowaad baynu ka dhigan doonaa markaas ninkii ama dambiilihii ama gacan ku dhiiglihii inta uu xaaskiisa dilay ayadoo weliba uur u leh haddana gacantiisa ku gubay oo ugu dambeyntii la soo qabtay. ninkan marka soo qabashadiisa horta hawl badan waa laga maray oo taas waa xaqiiq. magaalada muqdisho in uu ka soo baxsaday oo uu airportkii ama garoonkii aadan cadde uu ka soo baxay oo uu diyaarad ka soo raacay taasna mid shaki ku jirta maahan. waxaa jirtay program habeen saddexaadkii aynu ka hadalnay oo ninkanna sheekadiisa aan ku soo qaatay isagoo markaa garoonkii muqdisho ee aadan cadde airport ka soo baxay oo weliba dadka soo qaaday ama gaadiidka markaa isaga lagu soo qaaday ay ahaayeen gaadiidkii ciidamada Soomaaliya ama ciidamada amniga ee Soomaaliya taasoo ahayd eerta mid aad looga xumaado oo aan wax wanaagsan ahayn. waxaana la sheegay dadkii arrinka horta ku lug lahaa in la soo qabtay oo hadda ay gacanta ciidanka dawladda ay hadda ku jiraan waxna laga qaban doono. ninkan marka sheekadiisa ninkan ilaa iyo wuxuu orod ku aaday Galmudug. dambiile ayuu ahaa. ninku waa nin wuxuusha nin la arkay oo la maqlay maahan. nin xaaskiisii uu qabay inta uu dilay ilmo hortood ku dilay iyadu ay uur u lahayd xaaskiisu markaas Allahu naxariista gabadhaas dhimatay وصل قاب كحون ودلي نينكا قبل مركو دلي وأردي مركا وحا بلابمتي إن بوق بدن دنيعي بلشدة إيو سوشيال ميديا با أي كبلابتو إلين دلك وجيستا أي هامد عن مركا لفيرسن كرين أما ألاقا موسيقرين مركو أردي داد بدن أو سوماليات أو سوشيال ميديا كترة أي أرنتان وكعاي أو كدقالمي نينكا مركا فكت كيسا إيا إن أي دولة دي حل آده إسكسارتو oo ay ku mashquusho waxa harta kow creditkaas u tagaya dad badan oo Soomaaliyeed oo social media ku jira khaasatan daahir calasow uu kow ka yahay. in badan ayuu ka hadlay wixii la doonaha la dhaho balse taxaqa ahayd ayaa ah in uu wax badan ka hadlay arrintaana uu in badan aad u bushkaray oo uu riixay si marka wax loo qabto oo banaanka loo keeno. alxamdulillah ugu dambeyntii horta ninkii waa la soo qabtay soo qabashadiisa xitaa iyo meelaha uu joogo intaasna waa ku lug lahaa. dawladda Soomaaliyeedna dadka hadda soo qabtay ama ciidamada amniga ee marka soo qabtay horta aad ay ugu mahadsan yihiin. ninka maadaama uu ahaa gacan ku dhiigla waxa uu sii dheerayd aqal xumo uu kaga tagay ama uu xadkii ku gudbay isagoo nin Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed oo Islaam ah uu noloshii ku gubay. ilaa qof nolosha lagu gubay wax yar maaha ama wax fudud maaha. dawladda Soomaaliya way soo qabatay ciidamadii Galmudug ayaa iyaguna ku siiyay garab in ninkan la soo qabto. haddaba ninkan iyo soo qabashadiisii oo weliba isagoo gacmaha ka guban ayaa la soo qabtay. bal aynu markaas la fiirino qaabkii loo soo qabtay iyo sida looga hadlay. ninku nin xishoonaya ma ahayn. sida halkan looga muuqata ee aad u jeedaan waa markii la keenay ciidamo ayaa garbaha ka taagan oo isagii diyaarad ayaa lagu soo dejiyay. waa markii la soo kaxeeyay gacmihii isaga dhaawac uu ka gaarayna waa ay u duuban yihiin marka yacni orodka uu orday ilaa iyo meesha uu aaday tulooyinka laga soo qabtay ninkaas horta waa dambiile aad u weyn. bal haddii ordaayo maxaa ku kalifay waayahay in uu xaaskiisii iyo gabadha masaakiinta ah uu adduunka ka kaxeeyo oo uu dilo oo weliba si fool xun oo uu iyadoo nool gubay maxaa ku kalifay? wallaahi waa wax aad looga xumaado ayaa ahayd. ciidamadii ayaa hadda gaariga isaga saaraya kole ciidamada hadalkoodna waa rabnaa inaan isla dhegaysano aynu hal mar isla fiirino marka ciidamada iyo qaabkay marka uga hadleen iyo tay ka sheegeen. الكعسة ما سنتين إذا بدك قبل كذا بركة هذا يسمعها هذا يا لقيس تجي كرونك هذا نعدة إن شاء الله شرعي ودنك أيوم مرة ولوا هذا سنة ورك إلهي وحنور جينا أفضل بار إنت نسامي شيء إنه سمي بيمان تجسيه هذا سنة المحكمة يوليه رحفان يوليه هاي لوير يوليه هاي شرعي ودنك شغالين أو ضمبينتي وحن ما علينا إذا بدك قبل كذا النبي سويت قرنك تليمها صلاة دمان هلودنا كشقي شرعي ودك واشقي وحن emotion ما أهان ما رتي إن قفنا خير الله بيكسنا يوم رجنا ما أهان نين كانوا يقولوا إذا سنة دنبيلا ما أهان مركز شرعي
la xirana insha Allah markaas la ogaanaya waa maasiin dhamaan nabad sugidda qaranka ciidamada qalabka sida waqtigooda iyo naftooda u huray horta ninkaas hadda odaygaas hadlayay wuxuu dhahay sharcigii ayaa soo qabtay ninkuna waa eedaysanay horta eedaysana wuu yahay oo meeshiiba hadda in isagoo eedaysana ayaa lasoo qabtay dhibana ma ahayn balse eedaysana isagoo ah ayaa waxaa cad in uu xaaskiisii oo isaga u dhaxday uurna u lahayd in uu dilay ninkaas hadda askartaas soo qabatay ilka casaiya loogu wacaayo horta aad ayay u mahadsan yihiin hawl ama wax weyn oo dadkii Soomaaliyeed markaa dhibaato keen lahaa ama xagga Allah iyo diiniyanba ay inooga iman lahayd ciqaab ayaad Soomaali ka badbaadiseen oo nin dambiile oo qabiil ahaan ay u fakiyeen dad dawladii Soomaaliya ka tirsanaa oo gaadiidkii ciidamada amniga ee Soomaaliya inta lagu soo qaaday aadan airport la keenay ayaa soo celiseen oo aad soo qabateen taasoo ahayd dambi iyo dulmi laga galayo shacabkii Soomaaliyeed iyo wadankii Soomaaliyeed haddii uu sidaa ku baxsan lahaana waxay ahaan lahayd mid Soomaali ay markaa dhibaato iyo inkaar Allah ay ku dhacdo raggan ciidanka soo qabtay aad ayaan u mahadcelinayaa ninkan dawladda waajibkeedii waa ay gudatay ayuu dhahay waajibkeedii ma gudan dawladdu waa ay jiiftaa ayaan dhexdaas ahayd nin oday oo sidaan oo kale wax qaldan intuu sameeyay oo cunug yar oo dabajir meelaha lagu qiyaasay la dhahay waa uu xoogay wadankiina waa uu ka baxsaday ayaa la dhahay kuwaas ayaad wax ka qaban lahaydeen ninkan markii uu dhibaatada geystayna waa uu fakaday oo airportka ciidamadii amniga ee Soomaaliya ayaa geeyay sababta lagu soo celiyay marka dadkii aan hadda soo sheegay ee Daahir Cali oo kamid ahaa iyo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo social media ku jirta ayaa arrinkan ka dhidhisay oo har iyo habeenba qaylinayay meel walba taagnaa talaabada uu qaado ama meesha uu marayna markaa sheegayay xaqiina alxamdulillah maanta waa uu dilaacay dawladdii markii ay aragtay marka dadku sida uga hadlayaan iyo xaaladdu meesha ay marayso ayaa dawladdii waxay noqotay waji gabax iyo in ay ku ceebowdo ama ninkan ay soo qabato maadaama ninkan dambiile yahay oo waliba gabar xaaskiisii uur 6 bilood u leh uu dilay oo uu gubay ilmo kalena markaas ay lahayd gabadhaas marxumadda Allah yarxama dawladda marka waxa ay ka fakan weysay oo ninkan lagu soo qabtay waa qayladii iyo shacabka Soomaaliyeed tii ka dhacday oo magaalada Muqdisho waliba mudaharaad aad u ballaaran uu ka dhacay taas ayaa dawladdu meel ay ka gasho weyday kadib ay wax soo qabatay amaantan marka ninkan lagu soo helay dawladdu waxba kuma yeelanaysaa beeraatee ha iska ilaaban taas mid kale meesha taala ninkan dilka u geystay waa dil foolxum dambi lagu soo oogayna maaha waxani waa wax u geystay oo cad oo isaga xitaa gacmihiisii dhaawaca wali ka muuqdo gabadha ku gubaay yacni Allah wuxuu inoo sheegay aliyad biyad qof walba tuu wax ku sameeyay isagana in marka lagu sameeyo oo macnaheedu yahay ninkan haddii uu il riday waa in laga ridaa haddii qof dilay waa in la dila oo qaabkii uu marka u dilay lagu dila isagana waliba waajibna waxa ah xanuunkii uu gabadhaas mariyay iyo reerkaas in uu isaguna maro mid la mid ah si rag dambe ama dumarba waxay rabaan ba ahaalaane oo Soomaaliyeed oo dambi uga gala dad aan waxba galabsan markaas oo masaakiina ama xaasaskoodiya ama ilmo caruur marka ay dhibaato foolxun u geysteen ilaa haddii mar walba saas oo kale qabiil ahaan loo fakiyo hadhow tolo dhibaatadu waa sii badanaysaa cara allana inta ay timaado ayaa wadanku sii baaba'aya marka anyway horta aad ayay ugu faraxsanahay ninkan la soo qabto waajibkiisana ha maro si loogu qoys qaato oo dambigan oo kale iyo dhibaatooyinkan oo kale aan mar dambe loogu dhiiran qodobkan halkaas aynu kaga tegaynaa haddaba qodobkeena xiga waxa aynu ku soo qaadanaynaa sheeko aad u layaab badan oo Somaliland ka dhacday iyo magaaladii Hargeysa nin abwaan Soomaaliyeed ah oo waliba Somaliland ka soo jeeda oo magaciisana loogu yeero Cabdiraxmaan Abees ayaa waxa dhacday in maalintii shalay ahayd la xiro abwaankan xarigiisa markaa ka dambeeyay aabiis ayaa soo fariistay oo sheegay wiilkiisa isagu inuu soo dacweeyay oo sida daraadeed loo xiray dadku markay arkeen marka arrinka wax fudud bay u maleeyeen ama odaygaas isaga dhalay in uu run sheegayo oo ay wixii tahay marka wax cad oo toos ah oo odaygu uu ka dambeeyay in wiilkiisa loo xiro balse odayga arrintu waa ay ka daba timid oo odaygaba ma ahayn haddaba intaynaan sheekadiisa usii gelin aan hal mar aan idiin sheego dhibaatadu waxay ku imaatay in aan fahno ninkan abwaanka ah horta waa abwaan Soomaalina abwaaninteeda yacni dadka aadka loo xushmeeyo ay ka mid yihiin waana nin dhalin yar oday maaha ninkan abwaan Abees buug ayuu qoray buuggaas dawladdii Muuse Biixi dagaal badan ayay la gashay abwaan Cabdiraxmaan Abees markii ugu horeysay ee la xirayna maaha dhowr jeer oo hore ayay dawladdu ku khaldantay waxa dhacday isaga walaalkiis in ay xitaa dawladda Muuse Biixi hadda maanta talada hayo ay dishay oo adduunkan ba ay dhaafisay isaga aabiis marka Cabdiraxmaan Abees abwaanka aabihiis
maalinta shalay markuu hadlayo waxa ka horeeya la hor oo markaa dhahay waqti hadda kan ka horeysa inta la xiray isagoo wiilkiisa ku taageeraya oo dhahaya wiilkaygu xaqa ayuu ku taagan yahay oo waa nin hawshiisii qabsaday haddii dowladdii Muuse Biixi ay wiilkayga markaa xaq darro rabta inuu wax ku sameeyana wiilkaygu xaq iyo jidka toosan ayuu ku taagnaanaya mar walbaba xaq ayaanu ku dhimanaya odaygu markaas waa laan dheereeyay nin oo islaamnimo iyo odaynimo Soomaaliyeedba meel ku maray ayuu ahaa dadkuna waa ay ku wada taageeray hore ayaynu ogeyn in la dhahay haddii aad dhimanaysana dhararka waa la iska duwaa haddii lagu qabsaday ama annaka afkeena ku hadal oo afkiiga ku hadal ama annakana taageer yacni in aad cad buurad aad qaadatid maaha waa inaad raganimadaada iyo go'aankaaga iyo mabda'aaga aad mar walba ku taagnaataa oo aad taageertaa haddaba odayga ayaynu waxaan u tegaynaa hal mar aan codkiisa isla dhagaysanno oo maalintii shalay marka uu hadlay oo uu leeyahay wiilkayga ayaa aniga dambi iga galay oo anaa soo dacweeyey ayaan dowladda la aflagaadayn ama aan dowladda la aadin bal waa kan aan codkiisa isla dhagaysanno hal mar cabdiraxmaan waan aqaan qoyskooda ilaahay u naxariista aabihii abees aadanna waan aqaanay adeerkii ismaaciil aadanna waan aqaan wuxuu ka soo joogaa erayga marka lagu qabsaday oo uu leeyahay waa wuxuu iga galay waa khaladka uu ninkan markaas siyaasiga ah ee hadlaya uu dhahay waanu isnaqaanay oo aabihiisu waa u dhintay ilaa qofka uu qaldami karaa soo maahan wax la isku qabsada maahan eraygaas ayaa marka waxaa looga soo dhigtay kiis oo lagu qabsaday bal odayga aan isla dhagaysana hal mar aabihiisa qabtay nin baa halmaamay maxamuud xashi loo qaldamay wuxuu yidhi ninka aabihiina saaxiib baanu ahayna allah ha u naxariisto buugana isaga qabtaynkaygu wuu dul taagnaa aabbahay wuu dhintay muu odhan aabbahay wuu nool yahay inankaygu muu odhan wuu nool yahay cadaawadda inankaygu ku jirto taasaad ka garanaysa waan idinku caddaynaya anaa xidhay anaana ku daba jira de adeer anaa dhalay faraa ka qaad maxaan kaa galay adiga oo nin walba halkaaga ku aamus bishadaad ku leeday way iga dhantay odaygaas waa aabba Soomaaliyeed wuxuu dhahay wiilkayga anaa dhalay oo xirtay oo dacwad ka geeyay ayuu dhahay hadalka marka waxa uu ku darayaa oo uu sheegayaa in wiilkiisa dacwadda uu soo dacweeyay ama la xirayo in aysan dowladdii Muuse Biixi isaga markaa waa odaygaas aabbaha u ah abwaan cabdiraxmaan abees aysan dowladdii ka dhex hadlayn su-aasha meesha marka taallo waxa weeye abwaan abees aabihiis maxaa ku kalifay hadalka uu hadlayo in uu ku soo daro dowladdii igama dhex hadlayso ama dowladdii ima soo dirin oo lacag ima siin si wiilkayga markaa loo xiro taas ayaa mid weyn ah oo meesha taalla maxaa ku kalifay odaygan markuu saa u hadlay marka oo uu arrintii wiilkii la xiray damcay inuu ku daboolo horeyna aynu u sheegnay inuu hadda ka hor wiilkiisa ku difaacayay go'aankiisa iyo hadafka uu isagu markaa aaminsan yahay waxaa iyaduna markaa iyadoo xanaaqsan timid hooyadii wiilka dhashay oo dhahday wiilkaygu waa baari nin waalid necab ama dad necab maahan bay dhahday xitaa dadka dariska ah ehelka ah ayuu waalidnimo ku tixgeliyaa aabbihiisna erayga uu dhahay mid isaga ka soo go'ay maahan ee waa mid loo soo dhiibay waata uu hadda odaygu dhahaya marka hadalkiisa ugu dambeeya aniga dowladdu igama dhex hadlayso ama waxaa layma soo siinoo afkii dowladda kuma hadlayo maxaa meesha keenay marka odayga waxbaa la weydiinayay inuu dhaho dowladdii anigu afkeedii kuma hadlayo oo aniga waxba layma soo siin maxaa odayga madaxiisa soo geliyey oo uu ku dhahay taasaa shaki weyn dadkii marka gelisay oo waxaa la dhahay adeer waxaa kaa dhex hadlaysa waa dowladdii Muuse Biixi oo ninkan eryanaysay dowladda Muuse Biixi marka sababta ay ku eryanaysay maxay tahay habeen saddexaadkii miya ama habeen afraadkii waxa dhacday xaflad weyn oo loo qabtay buug markaa isaga uu soo qoray abwaanku oo meeshii lagu furayay xisbiyadii mucaaradka oo dhan ay ka soo wada qayb galeen dad madaxo badan ay ka soo qayb galeen Faysal Cali Waraabaa joogay Cabdiraxmaan Cirra joogay dad badan oo salaadiina joogay oo suldaankii xitaa Sacad Muse joogay waxaa joogay oo hogaamiye xirsi ayaa isaguna joogay wiilkana xafladiisa aad baa loogu yimid waa loo kala xiray habeenkiina dee meeshii waa la isugu yimid dowladdii marka Muuse Biixi aynu naqaano oo haddii shimbir meel ka dhusto aan ogolayn wax ay ayagu markaa wataan ma ogiye in ummadii kale ay farqaado ma ogola dowladdii waa dictator Muuse Biixi in cid kale ama hadasho ama ay meel aado ama qofku shaqaysto oo nafsadiisa wax u helo dowladda ma ogola Muuse Biixi waa ay diideen aan garan maayo yacni wixii ay shacabka ka damacsan yihiin ama dadkii reer Somaliland nolosha ay la rabaan ninkan abwaanka ana waa idin sheegay hore ayaa dowladda Muuse Biixi walaalkii u dishay bal haddaba hadalkii hooyadiis aynu hal mar isla fiirino iyo waxa ay ka dhahday arrinkan in aabuu markaa saxsan yahay
إن أبوه يعني نين لقى ده حد ليه وهم مركز أفكي دولة ده وكهدلية أو مركز يسوي ربي إن الدولة دي أحل قرية. أنا كيجو محيا هيدا عبد الرحمن أنا كيجا عبد الرحمن والد عاصي معها المحنة معها حق أمضى أودم بوضوضا والد عاصي شقكم لها أنا أقول لبا طبعا عروران قالي إن أنا تيو يار بيجا صغيرتي محيدي كوبيا طبعا كي كلا يتابع قالي كوبيا طبعا كي يتابع قالينا بردويدنا بالي يقدلي وصحق درالي يقدلي أنا جريدي ولينكي إن كي يقدلي لمدلين حبين يا معني بان وينويا هو تيران يسان بانا هاي هو إن كذا حق درالي قدلي بانا هاي هو أنا جريدي إن كذا بان أو هنتدي ولك قلالين أيضا هرت أنا وأنا هاي سبحان هو معان له ذكر له حنونا إسكالنا وأنا هاي سبحان maanta saaka waxaa la ii sheegay inankayga in la xidhay inuu aabihii xidhay laakiin aabihii muu xidhin aabihii dowladda ayaa usoo dhex martay inankayga dowladda xidhay annaga okay hooyadan waxay dhahday wiilkayga waxaa xirtay waa dowladdii Muuse Biixi iyo systemkiisii aabihiisna dowladdii ayaa ka dhex hadlaysa wuxuu aabihii ku soo eedeeyna waa ay beenisay odaygana hadalkiisa hadalkaas aan idin sheegay oo muddo ka hor dhahayay hadda waa raadin doonaa hadda helo waa kusoo dari doonaa balse meeshii waxaa cad dhowrkii beri ee lasoo dhaafayna dad wariyayaal oo aad u badan ayaa la xiray kuwa tiro badanna waa ay kasoo baxsadeen magaaladii Hargeysa waxaa dadkii marka saa u baabi'inaya oo dictatornimada ku haysta waa Muuse Biixi xukuumaddiisii iyo raggii heego oo ayagu marka xishoodkiiba ka tegi xitaa marka ay hadlayaan oo idaacadihi ay ka hadlayaan waxa macquul oo ay dadkii xitaa ku qancaan ma sheegayaan abwaankaasna marka abwaan abees oo habeen hore aan ogeyn wixii meeshiisa ka dhacay oo dadka ummadii dhan ay isugu wada timid oo horena buuggiisa loo diiday in bandhig loo sameeyo ayaa habeen hore markii mucaaradkii iyo salaadiintii iyo dadkii reer Somaliland bay isugu yimaadeen oo bandhigii loo furay ayaa ay dowladdii xanaaqday ninkiina xarga ay kula kaceen aabiis ayaana la soo dhex maray oo laga soo dhex hadlay dhibaatada taalla iyo Muuse waddanka siduu u baabiyey horta waa taas qabiilada gaarna waa la beegsanayaa oo in ay ama hadlaan ama ay wax sheegaan ama ay talaabsadaan ama ay jiifsadaan midna looma ogola Cabdimaalig Coldoon ayaynu ognay maanta tahaysata iyo jirdilka iyo garaaca lagu hayo ee uu xabsiga ugu jiro dad gaar oo markaa hal family ama hal reer ah oo waxyaalaha ugu xunxun ee socda iyo dadkii siday u baabi'een maalin walba wariyaashii marka reer Somaliland iyo dadkii dhalinyarada ahaa tacadiga iyo dilka iyo hagardaamada lagu wado waxay ku kaliftay in ay Garowe iyo magaaladii Muqdisho u kala ordaan ayagoo naftoodii badbaadsanaya waa wax uu Muuse Biixi ragga u shaqeeyay ay laynayaan iyo wax Muuse Biixi wiilkiisa uu isaguna jiteedka u taagan yahay oo intuu afduubto uu dilayo daba waxaan rabnaa hal mar inaynu isla dhageysano qaabkii wiilka loo dilay marka abwaan abees la dhashay oo uu markaa Baabullah inooga hadlayo iyo waqtiga la dilay aynu isla fiirnay balhamar Somaliland isku keenay waa inan yar oo abwaan ah oo 19 kii dhashay oo abwaanimada ku dhashay oo la yiraahdo in abwaan abees maana keenay Suudaanta Hargeysa ka dhacday kabadaas maana keenay Suudaanta walaalkii bay dishay dawladdu waa koow buugiisii baa xidhay waa laba isaga eriyatay waa saddex ummadda meesha iskugu timaado xirsi hadlayayna xirsi waa nin madaxa oo ka mid ah ummadda Somaliland iyo ragga Somaliland jooga hadduu Cabdiraxmaan Cirri yimina wuxuu ka mid yahay ummadda Somaliland haddii wuxuu timina waxay ka mid yihiin ummadda Somaliland halku Suldaan Xasan fadhiyayna suldaankii Habarawal sharafta iyo karaamada iyo xisiga baa fadhiyay baababtigi suldaan halku fadhiyayna sharafnimo kama maqlayn المجاهدين تنقلني هذا نقيسو بوكنا نقو ما نحيرن هبرش على بوكا ما يحيرن محفوظ كما يدين أربنا مو حيرنين للبهات مو حيرنين يوغادين ما حيرنين صومالي ما حيرنين بوكا وحا حيرني كاقيسي Baabullah ay hadalkiisa horta halkaas aynu kaga tegaynaa balse muhiimadda buuggan marka xafladda taabeen hore markaas habistacadka la isugu mid aad u weyn ayay ahayd bandhigga marka buugga lagu sameeyay rag badan oo mucaarada oo siyaasiyiin ah oo Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirre iyo dad badan baa joogay Somaliland oo dhan badankoodu way isugu yimaadeen salaadiintii odayaashii ganacsatadii horta meel aad u weyn baa loo sameeyay oo ay kala xidhnayd dowladdii Muuse intaas ay ka xanaaqday buugga waxa marka isaga iyo Muuse Biixi hadalla ay isdhaafsadeen
ayaa buugga ku jiray ayaa la dhahay tii ayaan buugga kusoo qoray oo kusoo publish gareeyey muuse marka waxa uu ninka ku haystaa waxa weeye maxaad hadalladii ina dhex maray ama sheekadii ina dhex martay aad buugga ugu soo qoraysaa somaliland marka maanta dadoo halkaasay maraysa muuse biixi inuu waddankii dhanba ka dhigo meel uu isaga u taliyo wuxuu rabana uu ka sameeyo qofkii rabana uu dilo qofku rabana uu xabsi ku xirto somaliland badbaaday u baahan tahay haddaan muuse biixi iyo heega la iska qabanna waddankan waxay noqonaysaa dee markaa in lagu kala yaaco oo nin walba meeshu doono uu markaa qaybtiisa la aado balse haddii waddankii badbaado laga rabo iyo somaliland in la badbaadiyo shacabkii somaliland waxaa u taalla hawl adag doorashadan in la dedejiyo ninkan muuse biixina xukunkan uu dadkii ku baabi'iyey ee uu dictatorka ka dhigay guri isagu iska leeyahay wuxuu rabana uu ka samaynayo ma habboona in uu sii joogo waa in laga tashtaa xukunkaana laga wareejiyaa videogan waan ugu dheeraaday halkaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo intaan ka badan ma sii wadi karno video ku xigay intaanu isugu imaan doonno insha allah iyo wixii update haddana waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu